waxaan si leexleexad lahayn kugu sheegaynaa Ismaaciil Cumar Geelow waxaad ka tirsan tahay waayihii hore waxaad ku jirtaa taariikh madow oo uu dalkani soo maray mustaqbalka jamhuuriyadda Djibouti wax door ah kuma lihid sidaas awgeed waxna kama go'aamin kartid ogsoonow إسماعيل عمر جيلو حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعب كشرفت الهيل جيبوتي ولا ليال دلكين جيبوتي وحا أومان تتاغين هاي إسجوش تاريخي جيس كأفريقيا يبدأ عصبة وحا كسعودة إسبدلوا وين أو جغرافي سياسات كواس أو سامين توس ku yeelanaya mustaqbalka dalkeena hase yeeshee Djibouti iyadu waxay ku jirtaa xaalad qalalaase siyaasadeed bulsho iyo dhaqaale oo aan hore loo arag tan iyo bishii May 1999 Ismaaciil Cumar Geele waxa uu si boob iyo xoog uu ku haystaa talada dalka in ka badan rubuc qarni kadib waxa uu dalku ku sugan yahay burbur rajabeel iyo cadaalad darro tani waa xaqiiqada qaraadh ee shacabka Djibouti ay maalin walba ay ku nooshahay si uu ugu sii dhago xukunka kaligii taliyuhu waxa uu 26 Oktoobar 2025 si badheedh u farafareeyay dastuurka dalka isagoo oo doonaya madaxweynenimo aan dhammaad lahayn talaabadan sharci darrada waxay caddeyn u tahay inuu doonayo inuu burburiyo wixii ka hadhay qarannimadii Djibouti maamulkiisu waxa uu horseeday musuqmaasuq baahan boob dhaqaale faqriga shacabka caburin joogto iyo xaalad magaalooyin in nadaafad darro iyo dayac badan ay ka muuqato Djibouti waxa loo yaqaanaa caasimadeeda magaaladii qashinka uu barkaday Ismaaciil Cumar Geele waxa uu maanta isku dayayaa inuu ka faa'iideysto xaaladda caalamka iyo isbeddelka ka socda gobolka si uu indhaha shacabka Djibouti uga jeediyo xaqiiqada jirta ugana baxsado caro shacab oo maalinta ka dambaysa sii xoogaysanaysa isla markaana uu xukunka ugu sii dhago waxaan si cad oo sharaf leh u xasuusinaynaa in Ismaaciil Cumar Geele mudaxileedkiisa shanaad ee sharci darrada uu si rasmi u dhamaysanaya 9 Abriil 2026 waxaan si leexleexad lahayn kugu sheegaynaa Ismaaciil Cumar Geelow waxaad ka tirsan tahay waayihii hore waxaad ku jirtaa taariikh madow oo uu dalkani soo maray mustaqbalka jamhuuriyadda Djibouti wax door kuma lihid sidaas awgeed waxna kama go'aamin kartid ogsoonow Ismaaciil Cumar Geelow xaqiiqada aayaha jamhuuriyadda Djibouti waxa uu maanta ku jira gacmaha shacabka reer Djibouti waxa aynu nahay shacab la dulmay la silciyay lana duudsiyay xuquuqdiisa maanta waxa ina saaran mas'uuliyad taariikhi in aan soo afjarno dulmiga badbaadino dalkeena una furno bog cusub oo rajo iyo xorriyad isbeddelku ma imanayo keligiis isbeddelku waxa uu imanayaa marka shacabku si midaysan si nabad si ballaaran oo waafaqsan dastuurka uu u muujiyo rabitaankiisa waa waajib ina saaran
إن أن عدكينا مدينو إن أن وهرجلينو إسبدل ديمقراطي أو دبعة وحان هيكسينينا جيبوتي عصب جيبوتي كردستان نبض ياس أفغان جيبوتي لنولان كرتا دليس كيدا قبلك إيا عالم كبا سي حشمت إيا إسكاشي مردل ugu dambeyn waxaan si cod dheer u sheegaynaa Djibouti waa hantida shacabkeeda ma aha mid uu leeyahay kaligii taliyaha Ismaaciil Umar Geelo waqtigaagu waa gabagabo xukunkaaguna runtii waa xukun dhammaaday wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu